kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkroon galka wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeen xalay lagu dilay degmada Jowhar iyo faahfaahin ka soo baxaysa dilkiisa kooxihii ka dambeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo eedeyn culus u jeediyay madaxweyne Waare madaxweyne Xaaf oo Dhuusamareeb dib ugu laabtay dad lagu tuhmayo kufsi gabar 9 jir oo gacanta lagu soo dhigay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan galka wararka daawadayaal balse haddii aad ku cusub tahay YouTube-ka waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo iyo xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya balse aan ku bilaabo magaalada Jowhar wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in koox hubeysan ay toogasho ku dileen gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Xaaji Maxamed dilka ayaa dhacay salaadii maqrib kadib sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka ayaa xaqiijiyay in uu dilka ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana kooxo hubeysan ay ka dambeeyeen gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana halkaasi gaaray ciidanka dowladda Soomaaliya ee booliiska isla markaana waxay bilaabeen baaritaano ku aadan baadigoobka kooxihii dilka ka dambeeyay ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ahaa mid aad u wanaagsan iyadoona ay aad ugu yaraayeen dilka loo geysanayo mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyadoona ciidamo fara badan oo booliis ah gudaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inuu ku fashilmay maamulidda deegaanada maamulka Hirshabeelle isla markaana ugu baaqay inuu isxasilo waxa uu sheegay in dhibaatooyin uu ka wado deegaanada gobolka Hiiraan isla markaana maalin walba uu keeno mid cusub si uu u aruursado dhaqaalihii lagu talagalay gobolka Hiiraan waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan balwadweyne keenin hal xabo bisoolada isla markaana ay taagan tahay dhibaatooyinkii uu abuuray isaga qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa horey ugu eedeeyay madaxweyne Waare inuu si degdeg isbedel ugu sameeyo gobolka Hiiraan isla markaana taasi ay keento dhibaatooyin fara badan tan iyo xilka markuu qabtay madaxweyne Waare gobolka Hiiraan waxaa soo maray gudoomiyaal badan kuwaasi oo qaarkood kii ugu badan uu hayay muddo 6 bilood ah isla markaana inta kale ay ahaayeen kuwa 3 bilood sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan gobolka Hiiraan madaxweyne Waare ayaa lagu eedeeyaa in dhibaatooyin fara badan uu ka wado deegaanada gobolka Hiiraan isla markaana taasi ay keentay in isbedel uu ku sameeyo mas'uuliyiinta ugu sareysa gobolka Hiiraan wax ka yar 6 bilood ayaa laga joogaa markii loo magacaabayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Dabageed kaasi oo markii la magacaabay sheegay inuusan mar dambe ay dhici doonin wax isbedel ah haddii ay noqoto in markaasi xilka lagu raago eedeynta loo jeeday madaxweyne Waare ayaa imaanaysa xilli la hadalhayay in xilka laga qaadi rabo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Dabageed kaasi oo inta badan la hadalhayay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha oo safar shaqo muddooyinkii dambe ku joogay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Mudug waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirada madaxweynaha ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu soo qabsoomay intii uu ku maqnaa safaradiisa dibadda iyo gudaha wuxuuna sheegay in muddo uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo halkaasina uu joogay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo sii wadi lahaa horumarinta amniga iyo nabadda Gaalkacyo iyo in Galmudug ay isku tasho si loo helo isku tashi iyo isku filnaansho dadka ay canshuurta bixiyaan canshuurta la qaadana ay ku baxayso nidaam dowladeed ayuu yiri madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf wuxuu khilaaf xoogan u kala dhaxeeyaa dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay taasi keentay doorashada ku soo wajahan maamulka Galmudug isagoo sheegay in doorasho aysan ka dhici doonin deegaanada maamulka Galmudug ilaa iyo xilkiisa uu ka dhamaado xilkaasi oo ku 2021 madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeeyo inay dhibaatooyin fara badan ka wadaan deegaanada maamulka Galmudug
dhowaan waxaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo maamulka Galmudug hase yeeshee doorashadaasi ayaa la isku khilaafsan yahay. Madaxda maamulka Galmudug ayaa ku kala sugan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado, iyadoona madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug ay ku sugan yihiin magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug, halkaasi oo in muddo ay ku sugan yihiin. khilaaf xoogan ayaa u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Galmudug iyo ku-xigeenadiisa, hase yeeshee waxaa xal laga gaar laayahay khilaafkaasi. Wararka laga helayo degmada Buuloburda ee gobolka Hiiraan ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen rag lagu eedeynayo kufsi loo geystay gabar 9 jir ahayd. ciidamada ammaanka ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen xaafadaha degmada Buuloburda iyo deegaano kale oo hoostaga, waxaana la sheegay inay falkaasi u qabteen in ka badan 10 ruux oo lagu toonsan yahay qaar ka mid ah kufsiga gabadha 9 jirka ah. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Buuloburda Cismaan Geedi Cismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan dad lagu tuumayo kufsiga islamarkaana dhowaan cadaaladda la horkeeni doono. dadweynaha ku nool degmada Buuloburda ee gobolka Hiiraan ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxay hadal hayeen dhacdada ka dhacday gudaha degmada Buuloburda ee gobolka Hiiraan. dhacdadaasi oo ahayd kufsi loo geystay gabar 9 jir ahayd ee ku nooleed degmada Buuloburda ee gobolka Hiiraan. Soomaaliya waxaa ku soo badanaya kufsiga loo geysanayo gabdhaha yaryar ee ku nool magaalooyinka dalkaasi, yeeshee waxaa mararka qaar dhaca in ay kooxihii kufsiga geystay ay jir dilaan ama ay dilaan gabdhaha ay kufsanayaan. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.